بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا شبكة sologroups.com ee laga barto cilmiga ICT iyo English oo ku baxa luqadda afka Soomaaliga magacaygu waa Cabdinaan Ismaaciil mar walba waxaad nagala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com waa request a lesson ama 10 ay soo weydiiyaan qaar kamid ah ardayda wax ka barata shabakada sologroups.com waa how to install a Kali Linux 2 on Oracle VMware Virtual Box inta badan casharadan ku sameeyno Kali Linux iyo kuwa kale ee virtualka ah waxaanu isticmaalnaa VMware laakiin ardayda qaarkood waxay yiraahdeen waxaanu doonaynaa inaan aragno qaabka loogu duubo Oracle VMware Virtual Box oo aad ka download gareyn kartaan shabakada sologroups.com aad ayuu u fududahay tabcan waxaanu isticmaalaynaa Kali Linux versionka ugu dambeeya oo 2016.2 ayaanu isticmaalaynaa isla markaana waxaan si fudud ugu duubaynaa oo qaabka loo isticmaalo markaynaa virtual box oo sameeyay shirkadda weyn ee Oracle VM marka casharku waa how to install a Kali Linux 2 on Oracle VMware Virtual Box iyadoo ay tahay virtualization Linux ugu horeyn waxa desktopka noo yaalo oo aan ku duubnay Oracle VMware Virtual Box oo sidaan hore idinku sheegay aad ka download gareyn kartaan shabakada sologroups.com halkan waxa yaala versionka ugu dambeeya Kali Linux 2.16.2 oo 64-bit ah isagoo uu jiro 32-bit laakiin inta badan waxa la isticmaalaa 64-bit waxaan furayaa virtualka sidan ayuu ku soo baxayaa Oracle VMware Virtual Box Manager halkan ayaan ka bilaabaya waxaan leeyahay new kadibna halkan waxaan ku qorayaa Kali Linux 2 sana si loo xasuusto nooca uu yahay halkana si automatic iyo versionka uu soo gelaya hadii aad doonto halkan ayaa ka bedelaysaa kadib waxaan leeyahay next ayaan leeyahay memoryga iminka 4 megabyte ayuu ku fadhiyaa waxaan ka dhigayaa ilaa iyo intaan doonayaan ka dhigayaa wad ujeedaa limit maalinta doonta ayaa ka dhigaysaa next ayaan leeyahay kadibna create a virtual hard disk now ayaa leedahay create ayaa leedahay VDI virtual box disk image ku dhaafaysa next ayaa leedahay kadibna waxaa leedahay dynamically allocate next ayaa leedahay iminka hard drive sida ayuu ku fadhiyaa halkan ayaa tagaysaa waxaad ka dhigaysaa wixii aad doontid ayaa ka dhigaysaa anigu waxaan ka dhigayaa ilaa iyo 100 ayaan ka dhigayaa 100 gigabyte create ayaa leedahay kadib kan ayaa sidan soo baxaya markuu soo baxo wax walba waa diyaar laakiin waxaan u baahanahay setting muhiim ah in aan ku sameeyno si virtualka uu u shaqeeyo qaabkii loogu talagalay setting ayaan tagayaa halkan markii aan tago waxyaalo badan ayaa ku jira waxaan ka bilaabayaa dhanka iyo systemka ayaan ka bilaabayaa memoryga kii aanu gelin hadda waan aragnaa waxaan ka saarayaa floppyga ayaan ka saarayaa optically hard drive ayaan ku dhaafaya marka isaga ayaa dushiisa tagaysaa dusha ayaa la geenayaa kana isaga ayaa dushiisa la tagaa dusha ayaa saan loo geeyaa marka intan kale oo sidan ah hardwareka wax walba qaabkan ayaad ku dhaafaysaa processka haddii aad eegtid waxaad ka dhigaysaa halkan 2 ayaad ka dhigaysaa accelerationka waxaad ku dhaafaysaa sidan qaabka uu yahay default ayaad ku dhaafaysaa marka halkan wax kale laga bedeli maayo kadib waxaad tagaysaa display ayaa tagaysaa display waxaan ka dhigayaa 100 ilaa iyo 21 ilaa iyo 122 ayaan ka dhigayaa oo ilaa halkan ayaan ka dhigay 120 waa enough ayaan ka dhigayaa waxaan leeyahay enable 3D acceleration remote display ma baahanahay enable haddii loo baahan yahay video capture ma loo baahan yahay looma baahna kuwan sidan ayaa ku dhaafaysaa storage ayaa tagaysaa waa muhiima halkan empty-ga ah ee control ID host ayaa saan u tagaysaa geeskan ayaa tagaysaa marka tagi maysid halkan haddii aad tagto wax ku soo bixi maayaan waxaad tagaysaa geeskan halkana markay reexid waxaad xulaysaa choose virtual optical disk file kadib waxaad tagaysaa desktopka oo ku yaalo Kali Linux oo ku duban yahay ISO oo insha Allah aan soo diri doono open ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay okay ayaan leeyahay halkan kan waa iga dhamaatay haddii aan ku laabto aan sii eego mar kale system aan sameynay display waan sameynay storage intii loo baahnaa waan sameynay audio wax loo baahna network haddii aad tagtid waxaad tagaysaa advance ayaa tagaysaa kan ayaad 1 2 3 aad bedelaysaa si uu uu ku fadhiyo uga bedelmo kan wax loo baahna kan wax loo baahna inta kalena qaabkan ayuu shaqeynayaa okay ayaa leedahay Kali Linux 2 sanca halkan ayuu ku soo fadhiistay mar walba waxaad ku laaban kartaa halkan oo aad ka bedeli kartaa wixii aad doontid ugu horeyn waxaan leeyahay start ayaan leeyahay waxaa si automatic ah uu soo qabsanaya oo uu soo baxaya dhankii iyo Kali Linux ayaa soo baxaya sidan aad u jeedaa kan waan iska xirayaa waxaan leeyahay start sana ayuu ku soo baxaya markuu sidan u soo baxo mouse-ka iminkan wuu xirmaya gudihiisa ayaad tegaysaa hoos ayaad falaarta ugu soo degaysaa waxaad leedahay graphic install ayaad leedahay kadibna enter ayaad leedahay iminka wuxuu si caadi ah ugu duubayaa sidii loogu talagalay ayuu ugu duubayaa marka intuu ku duubayo waxaan sameynay kan minimize ayaan ka dhigayaa kana minimize ayaan ka dhigayaa kan kaliya ayaan ku daynayaa marka mouse-ka gudaha ayuu ku jira waa muhiimkan English ayaan tegayaa continue ayaan leeyahay United Kingdom continue ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay British English ama wadanka joogtid wuxuu detection ku sameynayaa inuu CD
ama USB uu ka soo samaynayo. Marka wax inaad ka bedesho looma baahna, laakiin muhiimaddu weyn waxay tahay mouse-kan sida loo saari lahaa waa inaan isticmaalnaa control-ka midigta ee keyboard-ka ayaa looga saara. Waa muhiim control-ka midigta ku yaala kan bidixda ma ahan, kan midigta ayaa hal mar riixa, mouse-kan banaankana uu tegayaa wuuna soo laabanayaa. laakiin haddii aadan riixin ka saari maysid halkan dhib ayuu kuu keenaya. Marka halkan markuu soo gaaro wixii aad doontid ayaad halkan ku dhaafaysa. Anigu waxaan leeyahay solo groups meeshuu kaali ka yahay si uu personal uu kugu noqdo. Marka dambe continue ayaad leedahay, continue ayaad leedahay. iminka wuxuu ku weydiinayaa username ee password ayuu ku weydiinayaa abc123 ayaan ku qorayaa, kana waxaan ku qorayaa abc123. laakiin waxaa loo baahan yahay mid adag ayaa loo baahan yahay. continue ayaan leeyahay. saacaddii ayuu sameynayaa setting up the clock ayuu leeyahay. markii uu sameeyo wuxuu sii wadayaa oo detect uu kusii sameynayaa additional waxyaalihii kale ee loo baahnaa inuu ku daro. waxaad leedahay guided kan kudusha ah, continue ayaad leedahay, continue mar kale ayaad leedahay, continue ayaad leedahay mar kale, iminka continue ayaad leedahay. halkan ayaad imaanaysa, waxaad leedahay yes partition disk, waa muhiim, continue. iminka wuxuu format ku sameynaya partitionkii, isla markaana installation uu ku sameynaya systemkii ama operating systemka ayuu ku duubaya. marka muhiimaddu weyn waxay tahay mouse-ka haddii uu ka bixi waayo meeshan aad ku jirtid oo sidan ah, waxaa la sameeyaa control-ka midigta ee keyboard-ka ee u dhow FN-ka u dhow oo hoos yaala shiftiga ayaa la riixaa hal mar, mouse-ka banaanka ayuu imaanaya. marka kan iminka wuxuu qaadanayaa ilaa iyo 30 ilaa iyo 45 daqiiqo. markii uu ku dhamaado ama meel muhiim ah uu istaagana insha Allah waa ku soo laabanaynaa. iminka wuxuu soo gaaray use a network mirror, waxaad leedahay continue ayaad leedahay, continue ayaad leedahay. kadibna wuxuu sameynayaa in uu soo dhiso ama configuration uu ku sameeyo network-ka. marka waxaa dhiman meel muhiim ayaa dhiman. haddii meesha aan la xulin waxaa qasab noqonaysa in mar labaad lagu duubo. inta badanna qaladaadka ay la kulmaan ardayda xilliga ay ku duubayaan VMware-ka caadiga workstation iyo kana virtual ah, qaladkaas ayaa hal mar inta la riixo la yiraahdo continue oo la iska dhaafo ayuu qalad ka imaanaya errorka. marka waa muhiim inaan isla aragnaa qaabka looga gudbo qaladka ugu horeeya ee soo baxaya, kaasoo ah hal meel la riixayo si automatic default ayuu ku imaanaya. marka default waa la iska ilaaliyaa, waxa la riixaa dhanka kale. iminkaas aad ku aragtaan wuxuu sameynayaa config the package manager. kan wuxuu qaataa dhowr iyo 10 daqiiqo ayuu qaataa intuu sameynayo. markii uu sameeyana saan hore kugu sheegay gadaal ayaan kaga soo laabanaynaa. marka mouse-ka haddii uu ka bixi waayo halkan, mar walba waan ku soo celinayaa, waxaad riixaysaa control-ka midigta ku yaala ayaad riixaysaa ee keyboard-ka. keyboard-ka markii aad fadhiisid hal control wuxuu ku yaalaa bidixda, midna wuxuu ku yaalaa midigta, gacantaada ayuu ku yaalaa keyboard-ka. kaas ayaa la riixaa si mouse-ka uu banaanka u tago, halkan u tago. haddii kale halkan ka bixi maayo, dhib ayuu kugu noqonaya sidaad u isticmaashid computerka kale ee hoosiga si loo isticmaalo. marka in yar ilaa iyo 5 ilaa 10 daqiiqo ayaan sugayna ilaa uu ka dhameeyo. markuu dhameeyana wuxuu ku duubayaa iminka group bootloader-ka meeshuu kasoo boot garayn lahaa ama uu kasoo kici lahaa ayuu halkan ka duubayaa. marka kan ugu dambeeya oo aan idin haddii si qalad ah loo riixo qalad ayaa soo baxaya, ayaanu sugaynaa markii uu istaago. okay, halkan ayuu soo gaaray groupka. yes ayaad xulaysaa, continue ayaad leedahay, waa meesha ugu dambeysa. marka wuxuu ku fadhiyaa saa ku aragtaan enter a device manually. inta badan next haddii lagu socdo, haddii next la yidhaahdo qaladka ugu badan halkan ayuu ka yimaadaa, sababtoo ah boot wuxuu kuu dirayaa error kuu soo saaraya. kan ayaa la xulaa kaasoo ah dev SDI iyo qoraalkan harddiskiga kasoo bilow ayaad leedahay, continue ayaad leedahay. iminka shaqadii ugu muhiimsanayd ee ku duubista VMware-kan la isticmaalaya la yidhaahdo Oracle VMware Virtual Box oo aan ku duubnay dhanka iyo Kali Linux 2016.2 aan ku duubnay, wuxuu marayaa finishing the installation ama waxaanu maraynaa ayuu leeyahay ku duubitaankii meeshii ugu dambeysay ayaanu sameynaynaa. marka in yar ayaa la sugaa. haddii aad ka duubaysid USB waa laga saaraa, laakiin inta badan VMware haddii la isticmaalayo waxaa ugu wanaagsan oo loo isticmaali karaa dhanka iyo ISO oo aan wax error ku soo saarin. tabcan DVD iyo USB waa lagu sameyn karaa, laakiin recommendationka mar walba waa in lagu sameeyaa ISO. waxaad leedahay installation complete, it's time to boot, continue ayaad leedahay. iminka wuxuu sameynayaa, wuxuu ka saaraya wixii package ahaa oo uu isticmaalay ayuu ka saarayaa, wuu isa soo shidayaa. tabcan wuxuu kaga duwan yahay male Kali Linux, waa Kali Linux lagu duubay, laakiin qaabka uu u shaqeeyo Oracle VMware-ka xilliga lagu duubayo waa ka yara duwan yahay, isku mid ma ahan. marka haddii uu kula fududaado qaabkan ood isticmaali kartaa, haddii kale waxaad isticmaali kartaa kan professionalka ah ee VMware Workstation
caadiga ah ayaa la isticmaali karaa. kaas ayaa kasii weyn oo professional ah. kanna laakiin isku si ayuu u shaqeeyaa haddii ay ku hagaagto qaabka loogu duubo. marka intan yar ee finishing the installationka ama ku duubis ayaan dhamayn ayaan sugaynaa. markii uu dhammaado inagana waa la soo laabanayna insha allah. sidaan ku aragno reboot ayuu sameeyey ama waa soo shiday. halkan ayuu yimaaday. passwordka wuxuu ahaa usernameka wuxuu ahaa root. passwordkana abc123 ayaan ku sameynay. enter ayaan idhi. iminka waxaa si toos ah u soo baxaya Kali Linuxkii aan naqaanay oo ku duuban Oracle VMware Virtual Box oo si fudud loogu duubay. waa kan waad aragtaa. xilliga wuxuu ahaa 45 daqiiqo ilaa 50 ayuu qaatay. 2 jeer ayuu soo shiday isla markiina. kana waa versionka ugu dambeeya. kan automatic ayuu u imaadaa Firefox oo aan naqaano oo awal in lagu duubay ay ahayd. device-kana machine-ka diyaan eegno halkan snapshot aad ka qaadi kartaa. session information-ka, pause, reset aad ku samayn kartaa. halkan haddii aad eegtid waxaad eegi kartaa waxyaalihii horaan usoo sameynay inta virtual. mid kale waa lagu duubi karaa. keyboardka waa muhiim. settingkiisa, mouseka, integrationkiisa. device-ka haddii aad eegtid xilliga device-ka lagu soo xirayo ama uu soo geliyo halkan aad ku samayn kartaa drag and drop haddii aad u baahan tahay. host to guest kan ayaa muhiima. haddii aad doonaysid inaad kasoo qaadid hostiga oo guestiga u kanta hostiga waa computerkan kale ee Windows 10 ku duuban yahay. haddii aad doontid guest to host iyo by directional ayaa saan loo sameeyay. kan ayaa ka muhiimsan. marka iminka waad u jeedaa mouse-kana waxaan riixayaa control-ka ayaan riixayaa uu soo baxayaa. wax walbana sidii loogu talagalay u shaqeynaya. marka waxaa kaloo muhiim ah snapshot-ka machine-ka haddii aad tagtid snapshot aad ka qaadanaysaa. haddii aad doonto waxyaalo badan inaad ka bedeshid snapshot kow ayaa la sameeyaa. okay ayaa leeyahay. description ayaa lagu dhigaa. sawir ayuu ka qaadayaa. marka haddii error uu halkan soo galo snapshot-kii hore ayaad ku laabanaysaa. 1 2 3 ayaa lasii samaystaa. waxyaabaha kale oo laga samayn karana halkan ayay ku jiraan. fileka saan horena preference, machine, haddii aad doontid view, haddii aad doontid inaad samaysid input, device, wax walba halkan ayay ku jiraan. san ayaad u samaynaysaa. marka kanna aad u jeedaa terminalka haddii aan furo sidii loogu talagalay magacii markii aan gelinay oo ahaa Solo Groups halkan ayuu qaabka naga soo baxaya. marka sidan waa qaabka ugu fudud ee Kali Linux 2 sanca loogu duubi karo iyadoo la isticmaalayo Oracle VMware Virtual Box.